وسوق وين مقالة قالكاية حرنت قبل كمدق waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ciidul fidriga maadaama lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ganacsatada suuqyada waaweyn ee dharka iyo kabaha oo wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa waxay ka dareen hadleen sida wanaagsan ee ganacsigu u socdo suuqu aad buu u wacan yahay xaggan maalintan ciid aad buu u fiican tahay waxa gadashada gelinka dambe hadda aad buu fiican dadku aad buu mashquul u yahay Ramadaan kun wuxuu marayaa maalmihii ugu dambeeyay uu marayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in khayr uu noogu dhameeyo farxadeeda bishan barakeysan ee Ramadaan waxa weeyaan ma sha Allah xilli ciidan ku jirnaa ciidana si fiican baan ugu diyaar garoonay si fiican bay noo socotaa bulshada reer galbeedna si fiican ay u adeeganayaan maxaa ciidan waxaan rajaynaynaa ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland iyo gaar ahaan kuwa reer galbeed iyo gobolka mudug guud ahaan waxaan u rajaynaynaa khayr iyo barwaaqo iyo muxuu ahaayay wanaag waxaan ilaahay ka baryaynaa in ciidda ilaahay nabad iyo amni noogu dhameystiro ciid wallahi aad baan dareemayna xamaasadeeda aad baan dareemayna si sharaf leh maadaama aan ganacsada ahay xagga ganacsiga aan ku jiro waxaan ka dareemayaa dhaqdhaqaaq wanaagsan ma aad uga dareemayaa dhalinta ayaa laga dareemayaa farxadda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin u diyaar garowga ciidda barakeysan ee Ciidul Fidriga ما شاء الله dadka Soomaalida iyo muslimiinta waxa uu bishaaraya ciidii soo dhawaatay maanta waxa halka ugu muuqata dad badan oo diyaar garoobay ciida waa faraxsanahay sax macana kashkii laafta waa ka faraxsanahay maanta hada ciid noo soo dhawahay dadka suuqa waska oo ka sax macana ciida ayaa si isku wada mid ah u diyaar garowgeeda looga dareemayaa dhammaan suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug markii ay sii dhex qaado suuqyada waxaad arkaysaa meelo badan oo waxyaalo kala duwan lagu gadayo sida qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan diyaar garowga ciidul fidriga loo yaqaan ayaa waxaa laga dareemayaa guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug meelaha xarumaha lagu ganacsado marka aad fiiriso ayaa waxaa ka dareemaysaa mashquul aad u badan kaasoo loo jeedo jiro sidii ciidul fidriga loogu diyaar garoobi lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxay u diyaar garoobayaan sida dharka cuntooyinka ay iska bixin lahayn ciidul fidriga kuwaasoo mashquul badan laga dareemayo goobaha ganacsiga sida carwooyinka iyo meelaha kale oo bulshada isugu timaado suuqyada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa arkaysaa in dadku aad u shaqaysan yihiin jidadka waaweyn ee Suudaan waxyaabo kalbaadi ayaa la filayaa in ciidda barakeysan Ciidul Fidriga loo dabaaldego dhammaan TV iyo raadiyo shacab Gaalkacyo